shir jaraadeen maanta magaalada Burco ku qabtay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka Togdheer ayaa waxa ay cambaarayeen xadhiga shan ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer oo xabsiga loo taxaabay maalintii soo dhaweyntii wafdidii horkacayay gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ay soo gaareen magaalada Burco waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka Togdheer Aadan Xuseen Maxamed waxaana uu sheegay inay ka xun yihiin dhalinyarada xabsiga dhexe lagu ilaaway sidoo kalena waxa uu baaq u diray maamulka gobolka Togdheer sidii dhalintaasi xorriyadooda loogu soo celin lahaa dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka Togdheer maalintii xisbiga kulmiye gobolka Togdheer uu yimid walnimada la soo xidhay xataa laan uu xidhay yihiin kiiskoodii saaka markii waxa naloo sheegay in CID ay hayso maxkamadda laba horkeenin kiisna lagu hayo xaqdarri ku xidhay yihiin sababta ay nimadaasi ku xidhay yihiin waa sabab uu maxaan ku dhahdaayay saduleen ah ama maxaan ku dhahdaayay حسب الحاكم في ذلك محاو قهرت بعدين أما محاو ديدين أما محاو راعويدين أما محاو تاجرويدين وأهرين لياب لويان وأهرين أجوبة وأهرين هرو دعين دي وحسب جمرة يهلكا إلهي سبحانه وتعالى دقراك يسمع كتل مامي دنيا إلهي بعله مالب بعد با مارتي كتلسا أما مالب بعد با محنكر هذا هو كان كهيسا دنيا ويس بالدشاء isbedel kadee wadanka jira hadii kulmiye ka xanaaqo waa meeshida laakiin waxaanu dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka Togdheer ama barasaabka gobolka Togdheer waxaanu ka codsanaynaa inamada gobolka Togdheer ku xidhan saldhigga dhexe ku xidhan in xorriyadoodii si degdeg ah loogu soo celin waayo oo si degdeg ah xorriyadoodii loogu soo celin waayo arintaasi waxay keenaysaa cawaaqib xumo gobolka dhexdiisa iyo Soomaaliland ba ka dhalan doonta shanta inan waxa la kala yiraahdaa Ali Abakor Saciid Cabdi Haliil Khadar Jaamac Cabdi Khalid Cabdi Jaamac Kamal Ahmed Maxamed shanta inan ba xidhan arintaas aanay u xidhan yihiin arintaasina arin macquul ma aha waxaanu dawladda ka codsanaynaa gobolka Togdheer uu degan yahay xisbiga kulmiye ka hor uu deganaa xaalad abuurka gobolka Togdheer halaga daayo waxa jirta baata arday yaryar oo aan wax allaala iyo wax ay sameeyeen aan jirin dambi aan ku lahayn in la xirxiro oo saldhigga la iskaga taxaabo iyagoo waxa ay sameeyeen oo kaliya ay tahay anagu Muuse Biixi doonayna haday yiraahdaan de anaga ma la yiraahdaa maxaa loogu xiraya haday taa la isku xirayo de horaba in dadka loo qabtaabay hayna waxaan leenahay inamada hal lagu soo celiyo xorriyadoodii si dhaqsan ah loogu soo celiyo si kastaba shirkan jaraad ayaa ku soo beegmay xilli ay maalintii saddexaad xabsiga ku jiraan dhalinyartan ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Burco Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto shabakada caalamiga Burco online magaalada Burco.